Donald Trump waa ceebuwa siyaasiyiinta Maraykanka. Sannadihii badan, madaxweynaha Maraykanka waxay ahaayeen dad hore u qabtay xilal dowladeed oo kala duwan. Biden, Clinton, Obama, Bush, Reagan. Shakhsiyaadkani waxay markii hore ku tallaabsadeen jaranjarooyinka xirfadeed, si tartiib ahna waxay u helaayeen xilal doorasho ah oo muhiim ah. Kadibna waxay noqdeen madaxweynayaal. Donald Trump ma aha guddoomiye gobol, maamul magaalo ama senator. Ma haynin wax xafiis dowladeed ama doorasho ah. Laakiin si degdeg ah ayuu u noqday madaxweyne. Sababtoo ah siyaasiyiinta Maraykanka, kuwaas oo noloshooda oodan ku qaata xilalka dowladda, ma awoodaan inay wax ka qabtaan xaaladda dalka. Sidna ma qaban karto. Reer Republican ma ahan, reer Democrat ma ahan. Kadibna dadka Maraykanka ah waxay doorteen ganacsada, ma ahan siyaasi, inay noqoto madaxweynahooda, iyagoo rajaynaya inuu xalliyo xaaladda. Sidaas darteed, Trump waa ceebuwa dhammaan siyaasiyiinta Maraykanka. Reer Republican iyo Democrat dhammaantood. Laakiin Trump naftiisu ma awoodo inuu wax ka qabto xaaladda.